ciidamo ka soo goostay maamulka Puntland ayaa maanta soo gaaray magaalada Laascaanood waxaana lagu soo dhaweeyay aatariska ciidamada qaranka Soomaaliland ee jidda hore waxaana halkaas ka hadlay taliyaha ciidanka qaybta 7aad Mahad Cambaashe Cilmi wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo ciidamadani waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin maatinka aad ka timaadeen wallay qaar kale oo idinka dambeeyo oo wali waddanka ku sii harsan way jiraan kuwa kale waxaan leenahay walkaalada deegaankii iyo magaaladii oo ka warhayaado ciidankaasi markuu la dheere galay 400 buu ahaa soona wurwid iyo eegaag iyo buuhoodla soonihiisa laga qaaday aan malaynayaa wax badan meesha kuma harsana waxaad kaga duwan tihiin si habsamiya baad meeshii ay lahayd iyo gobolkii noo soo beegteen aan malaynayaa markii aynu dhulbahanta sheegano dhulbahanta inuu horumar gaaro oo tashado oo wanaagsanaado waxaan u malaynayaa cidina igama jecla waan wada jecelahay goor muuse gaaraya 14 garaad baan holhol yiri waa shiraynaado markaas aan ku nidhi shira intaan ugu tagi hadda tale saaxdheer garaadada 14 intee joogta ormo haysan 14 garaad baa 13 kale meel kale ku hadheen marka 14 markii ay dhamaayeen talada ay soo saari waayeen saaxdheer oo hadda hal garaad loo joogo ayaa maanta tala ka soo baxaysa sidoo kale taliyaha ciidanka qaybta 12aad ee ciidamada Soomaaliland ee dhankiisa uga mahad celiyay ciidamadan wuxuuna sheegay inay ka mid yihiin ciidanka qaranka aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidankan ka yimi dhinaca Puntland ee ku soo biiray ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay inay ka mid yihiin Soomaaliland ee aan Puntland ahayn ee Soomaaliland yihiin gartay aad iyo aad marka hore ugu mahadnaqayaa waa soo dhaweynaynaa gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa nimanka laga bilaabo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ugu soo biireen ayaa uga mid yihiin sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada soo goostay ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka mid noqdaan ciidamada Soomaaliland maaha markii ugu horeysay ciidamo ka tirsan Puntland ay u soo goostaan dhinaca Soomaaliland Cabdiraxmaan Ali Ducaale Home Cable TV Laascaanood